جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى mahad oo dhan iskale isku keenay meeshan barakaysan iyo arrintan barakaysan ka wada hadlayno. dadku siyaabo badan bay isugu yimaadaan, waxyaabo badan way ka wada hadlaan, laakiin waxaan ka wada hadlaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisii in la barto laguna dhaqmo ayaynu ka wada hadlaynaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligaa iskale subxaanahu jalla fi ula. arrintan la dhiibay wax ka dheh xaqiiqatan cilmigu dee qiimo leeyahay, fadliga dheeraad leeyahay, arrin u baahan cadaymo iyo baraahiin iyo adilo iyo in dadka lagu qanciyo cilmigu qiimo leeyahay barta. waxaan filayaa inaan u baahnayn cilmigu waxaa qiimo ugu filan qofkii jaahilkeen aqoonta lahayd baa sheeganay la aqoonyahan baan. marka waxaan filayaa isagoo cadaymo u baahna aayaadkii walaalka lagu akhriyay bay ku jirtay hal yastawi alladina yaclamuuna walladina laa yaclamuun. يعني مسيبين طبعا مصر هو استفهام إنكاري، يعني ما سؤال استفهام سؤال طلبي وجواب سوري معها، يعني مصر النووي يعني بكرة كنتاهي، وأنا هذه مقرر في الفطرة دليل هو برامج ضرورية. علم نفس وقتي والله قيبوت، علم وحي من الله سبحانه وتعالى كتاب في السنة يعلمي مصدر كيس هي التجربة اختار لي موضوع كله ووحي هو ولا تجارب. waxaa la isku leeyahay tamiyada qaarkood markaasa xanuunada qaarkood marka qofku ku dhacay baa waxa soo baxay inuu dawo yahay ama uu ka daweyn karo sabab loo dagaalamayo gaar wax tajribo lagu gaadhay weeyaan. physics waa la mid, chemistry waa la mid, aqoonta ibn aadamku iyo waxa ilaahay inta ka soo hadhay wax tajribo ku yimid waxay soo diinayaan kaba qiimo badan. waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiisa ka yimid kitaabka sunnada ah iyo tajribada ibn aadamka. dabcan waaqicina maanta waxa qiimo badan qofka tajribada barta, qofka barta dhakhtarnimada ayaa ka qiimo badan wadaadka oo markaan ku eegno aragtida mujtamaca. laakiin markaynu si rasmiya u eegno inagoo ku eegaynaa yani aragti caafimaad qabta oo dhinacna raacsanayn, dabcan horta way iska hor imanaya marka la kala fadilaya labada shay markay isqabtaan ayaa la kala hormaraya. maya dabcan iska hor iman maayaan, labadaba waa loo baahanyay, laakiin keebaa qiimo badan? dabcan waxigaa qiimo badan sababtu tahay waxaan tajribada lagu gaari karin ayuu waxigu ka jawaabaya. aqoon qofkii ibn aadamku hadduu si kasta u raadiyo oo caqligiisa mujaradka uu ku qaban karo aanu ku gaari karin waxigu ka jawaabaya. qofkii ibn aadamkii waxyaabada su-aalaha qaarkood markuu isweydiiyo kama jawaabi karo, caqligiisuna awoodu ma laha, mana tahli karo inuu su-aalaha qaarkood ka jawaabo. sida awgeed wixii baa loo baahan yahay waa alkitaab wasunna. ilahi baa subxaana wa tacaala inaga filan. tusaale yaro kooban, ribadu ma dhibaateeda mise dhibaato ma laha? siduu qur-aanku ku faahfaahiyey iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqaalaha dhigta ku tahay qofka ibn aadamka caqligiisu ku gaari maayo. laakiin qur-aanku tafaasiil layaab leh suurat albaqara dhameedka ay ku xusan iyo suurat al-cimraan ayuu ka tilmaamaya. dhibaatadeena maanta la arkay qolayka dhaqaaluhu ku sheegayaan in ribadu ay tahay kansarka oo kale, caafana allahu iyaakum. kansarka oo kale, kansarku waa urug jirka ku samaysmaya sida qolayka caafimaadku yaqaanaa. jirka markuu ku samaysmo wuxuu u baahan dhiig tiro badan. dhiiggaa tirada badan ee jirka ku jira xubnihii kalena way u baahan yihiin. dhiiggii in badanoo kamida uu qaadanaya, qofkii xubnihii kale o dhan baa xanuunay markuu dhiigku gaari waayo. wuxuu samaynayaa inuu mar ka dambaysa isagu sii weynaado oo weliba uu tarmo mutawaaliya handasiya waxay dhahdaan. mutawaaliya xisaabiya ma 1 2 3 4 ma waa 2 4 8 16 ila akhiri. unugyada kasarku saas u tarmaan, taasina waxay keenaysaa inuu dhiigga oo dhan wada qaato, marka dambena uu diido xataa wadnihii dhiigga sameeyay inuu qaato. ribaduna waa noocaas oo kale, dhaqaalona bay uqsanaysaa ila akhiri. marka waxyigu cilmi lwaxyi aham min cilmi tajriba. hadday isu ka qabtaan waa inaad waxyiga qaadataa. kow waa in qofkii ibn aadam ka badbaadaysa adduunyada waxay ku xiranta waxyiga. waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma. sidoo kale badbaadada aakhirana cilmiga waxay ku xirantay ugu dhaqankiisa. inaad kitaabka iyo sunnada barato ood ku dhaqanto ayay badbaadada aakhirana ku xirantahay. inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. sidoo kale cilmiga waxyigu wuxuu saxayaa akhtaada ibn aadamku ku dhaco ee tajribada ku saabsan. dabcan lama soo koobi karo waxyigii qiimaha uu leeyahay run ahaantii ee waxaa loo baahan yahay qofka baranaya inuu cilmigan qiimeeyo.
كتاب السنة البرطاء علمي كتب الرعي والبرطاء قيمة شيخ خليل قيمة شيخ خليل وحى المرمى كل يسوون قيمة وسكرامة يقولوا قالوا إنه رجع يروح أدوك يوقي البحر بطناء إلى رجالي وحكروا المرمى نسوي علم جوه نقاعه وبيروا البوجة وحي الله سبحانه وتعالى بيروا البحر أي تطلب وقفتي الصلاة وحي وقفتين كان أفضل دوا يدو دمية وحلا قانا إيش وحما ركض إلى كلام اختيار قفك ولادك عقل إيش وحما حكي مايو هذه وحي هوايو سيدا أولي مجتمع وحلا كمارمانا الوحي ده يعد لقطاء يعد لقصة إنه يتوقع مايو أتكلم علمه هنا قال قاعد مايو وليه تبانك أقولت مادة طبعا وضد وثنيين لكن أقولت مادة قال ليه بيك قاعد مايو يعني هو رأيك كمان لكن لو يدي بحكوا قاعدين وحيابه الشيء هو حكمنا إلا قيمة يضرك الإكتاب وحلا لذا يعد الإكتاب إلا قيمة أنت معلك البورصة لما كان اجتماعية أو هاي أنت أرض علم الشرع قال برأي البورصة بيرجع ما علم سيدا وجد بالبلد اللي بيحكوا شفتها علم الوحي بأول مرة وضرك برأي القيمة يكمل يوم القيمة وصلى الله وسلم على نبينا جمال الوجود بذكر الإله وتصف